بسم الله الرحمن الرحيم أكلنتو عن وناكسن صاحبada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan taariikhdu waxay ku beegan tahay 18 bisha 2 February sanadka 2020 qodobada wararka xiisaha badan ee ku saabsan Soomaaliya iyo dunida inteeda kale ee aan xiliga kan idin hayno waxa kamid ah ururka al-shabaab oo sheegtay tirmada fiica inay ku weerareen xerada xalana ee magaalada Muqdisho hadalka soo yeeray shabaabka waana soo gudbin doonaa oo ku aadan madaafiic ay sheegeen in ay ku weerareen saacadii la soo dhaafay xerada xalana ee magaalada Muqdisho saameyn teelag ayaa ka dhalan karta hadalkii xanafta lahaa ee wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ee uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliland waan eegi doonaa guux durba ka dhashay hadalkaasi wasiir Maareeye iyo madaxweyne Muuse Biixi oo isaguna maanta hortagaya golayaasha sharci dejinta maamulkaas isla markaana uu ka jeedinayo khudbad uu ku soo hadal qaadayo arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland warka ayaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland sarkaal in ka badan 10 sano oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo isku dhiibay ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Bakool iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi oo ka hadlay macluumaad la xiriira sarkaalkaasi isku dhiibay ciidamada dawladda waanidii soo gudbin doonaa gaari dad shacab ay saarnaayeen oo lagu dhacay gobolka Shabeellada Dhexe halkaasi oo tirada lagu dilay tirad dumarna kufsi loogu geystay faafeen ku saabsan waan eegi doonaa dibaddana waxaan u eegi doonaa madaxweyne Trump oo hanjabaad u jeediyay wadamada la macaamil la sameeya gobolka Hubei ee dalka Shiinaha halkaasi oo si xoog loogu dhuftay caabuqa coronavirus qodobadaasi ayaa daawa doontaan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta inaga mudan channelka subscribe hadin ahaado si aad u heshaan muuqaaladan halkaan idinku soo gudbino haatan ku soo dhawaada warkii intaasi ka faahfaahsan ururka al-shabaab ayaa waxay sheegteen in tirmada fiica ay ku weerareen xerada xalana ee magaalada Muqdisho war ay ku soo qoreen dhaqdhaqaaqa al-shabaab bogooda internetka ayaa waxay ku sheegteen in tirmada fiica oo ay sanacaymin ay ku tuureen xerada xalana ee magaalada Muqdisho shabaab waxay sheegeen in madaafiicdaas ay qasaaro ku gaarsiiyeen ciidamada AMISOM iyo hay'adaha qaramada midoobay balse si cad maysan u sheegin qasaaraha intuu la egyahay madaafiicdan ay al-shabaab sheegay in saacadii la soo dhaafay ay ku tuureen halkaasi ma jirto dhinac kale oo ka madax banaan oo xaqiijiyay madaafiicdaasi in ay ku dhaceen xerada xalana ee magaalada Muqdisho dhowr jeer oo hore ay al-shabaab sidan salamida tira madaafiic waxay ugu tuureen xerada xalana ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo qasaaro ay ka soo gaareen xafiisyada qaramada midoobay ee xerada xalana ku dhaxyaala iyo AMISOM xerada xalana ee magaalada Muqdisho oo ammaankeeda aad loo adkeeyo mararka qaar al-shabaab waxa ay ku tuuraan tira madaafiic halkaasi waxa fariisamo waaweyn ku leh ciidamada AMISOM waana xerada ugu weyn ee AMISOM waxa sidoo kale halkaasi degan qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya saameyn balaaran ayaa ka dhalatay hadal wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kaga hadlay arinta ku aadan tagista madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee magaalada Hargeysa taasoo ay qaadacday Somaliland wasiir Maareeye oo aragtidiisa ka dhibanayay socdaalka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Hargeysa ayaa xusay inuu san wax badan kala socon balse madaxda Somaliland iyo shacabka Somaliland ayaa kula taliyay inay iska daayaan waxaan macnaha soo kordhinaynin isla markaana la yimaadaan siyaasad la jaan qaadi karta isbeddelka ka socda geeska Afrika waxa uu sheegay in siyaasiyiinta Somaliland inay ku dhaqmayaan arin uu ku tilmaamay seef laboodnimo oo aan waxba ku soo kordhinin 28 sano haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland ayaa arintaasi aad kaga carooday waxayna sheegeen in wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya u qaabilsan dhanka warfaafinta uu u gafay Somaliland sidoo kalena dad dhibaato loo geystay uu haatan boogahooda si damqiyay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Somaliland oo saxaafadda sabab kala gedisan oo la hadlay ayaa sheegay in wasiir Maareeye hadalkiisa aad kaga caroodeen wax waliba oo dhacana aan Somaliland hoostagi doonin dawladda federaalka ee Soomaaliya tani ayaa u muuqata mid si kal fogeynaysa Soomaaliya iyo Somaliland dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta oo talaado ah la filayaa inuu khudbad ka horjeediyo golayaasha maamulkaasi gaar ahaan kuwa sharci dejinta Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ah kaga hadli doona horumarka Somaliland muddada uu xilkaasi hayo waxa sidoo kale khudbadaasi la filayaa inuu ku soo hadal qaado
arrinta wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo in muddo hakad ku jira. Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sidoo kale ku soo hadal qaadi doona sida ay shaaciyeen xubno ka tirsan Somaliland kulankii magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ku dhaxmaray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo isaga iyo arrintan ku aadan tagista la sheegayo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu tagi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Waxa aad loo wada sugayaa khudbadaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ka horjeedin doona golayaasha guurtida wakiilada iyo fulinta ee Somaliland. Waxa sidoo kale munaasabadaasi goobjoog ka ahaan doona xubnaha ugu sareeya xisbiyada mucaaradka ka dhisan Somaliland sida xisbiga wadani iyo UCID. ma jirin wax wada hadal ah isku soo dhawaansho dhaxmaray Soomaaliya iyo Somaliland saddexdii sano ee la soo dhaafay ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda hoggaanku ay hayaan. ciidamada militariga dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Bakool ayaa saacadihii la soo dhaafay sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab ku soo bandhigay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. sarkaalkaasi oo 11 sano ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana ka soo jeeda degmada Xudur ayaa waxa magaciisa saraakiishu ay ku sheegeen Colaad Abdiraxmaan Xerow. gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka magaaladaasi Ibraahim Isaaq Ibraahim oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ninkan uu markii hore xiriir la soo sameeyay maamulka kadibna uu isku soo dhiibay ciidamada sidaasina ay ku soo dhaweeyeen. sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in uu mahadceliyay sarkaalka maamulka iyo saraakiisha ciidamada maadaama ay soo dhaweeyeen. dhankiisa ninkan sarkaalka ee isku dhiibay ciidamada laguna magacaabo Colaad Abdiraxmaan Xerow oo la hadlay wariyaasha ayaa tilmaamay inuu Al-Shabaab ugu shaqayn jiray darwalnimo haatana uu isagu go'aansaday inuu ka baxo kooxdaas fikirkoodana uu ka tanaasulay. weli ma jirto hadal ah oo ka soo baxay dhinaca dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku aadan sarkaalkan dhankooda ka goostay. inta badan gobolka Bakool waxaa iska dhiiba xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. marar badan ayaa Xudur lagu soo bandhigay saraakiil dagaalyahano kale oo Al-Shabaab ka goostay. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in dabley hubaysneed ay dhac u geysteen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah kaasi oo ku soo wajahnaa magaalada Muqdisho. gaarigaasi ayaa lagu dhacay goob u dhow degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. dableyda oo hubaysneed ayaa marka hore rasaas ku furay gaariga waxaana rasaastaasi ku geeriyooday darawalkii gaariga kaxeynayay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe. intaasi kadib dableyda ayaa furtay 18 ruux oo gaarigaasi saarnaa iyaga oo ka qaatay moobeelo lacago iyo wixii kale oo muhiim ah oo ay dadkaasi shacabka haysteen. intaasi kadib dableyda ayaa ka haystay tiro dumar ah oo gaariga saarnaa kuwaasi oo kufsi ay u geysteen. dhacdadan oo aad u xanuun badan ayay sheegeen dadka deegaanka in aanu jirin wax maamul iyo ciidan oo caawiya dadkaas isla markaana dableyda ay goobta ka baxsadeen. waxa aad u sii xumaanaya amaanka wadooyinka gobolka Shabeellada Dhexe halkaas ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka hubaysan ee arxandarada sida arxandarada ah dadka shacabka kula dhaqma. Shabeellada Dhexe amaankeeda ayaa ah mid aad u xun waxaana dadka ku safra wadooyinka gobolkaas ay aad kaga deerinayaan amniga Shabeellada Dhexe. dhinaca kale warar ah la ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ay ka maqan yihiin degmadaasi kuna sugan yihiin Muqdisho iyo qaybo kale oo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe. haatan akhbaaraadka dibadda safiirka Mareykanka ee Germany ayaa xadii sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu joojin doono sirdoonka uu la wadaago dalalka la macaamilo shirkadaha Shiinaha ee dhanka Huawei. Washington ayaa dalalka xulafada la ku cadaadinaysa in ay joojiyaan la tacaamulka shirkadahaas laga leeyahay Shiinaha kuwaas oo ay ka mid yihiin tiknoolajiyada ugu waaweyn caalamka. safiirka ayaa yiri Trump wuxuu ugu amray in aan cadaadiyo dalkii xiriir la sameeyo Shiinaha sabab la xiriira yareynta caabuqa coronavirus ee haatan ku sii baahaya qaar ka mid ah wadamada caalamka. amarkaasi waxa uu hoggaansamay ilaa haatan dalal badan oo kuwa Yurub ka mid ah halka kuwa kale aysan wali hoggaansamin. tani ay u badan tahay inuu dhaqan galo sida uu sheegay safiirka xilli uu khudbad ka jeedinayay shir uga qayb galay Germany. Mareykanka ayaa horay u soo dhaweeyay caabuqa coronavirus ee ku dhuftay dalka Shiinaha waxaana uu sheegay in fursado kale oo dhanka ganacsiga ah wadankiisa ay u horseedayso maadaama dagaal xagga ganacsiga iyo dhaqaalaha uu kala dhaxeeyo Mareykanka Shiinaha.
caabuqa coronavirus ayaa in ka badan 1700 ku dilay dunida si gaar ah Shiinaha oo dadka ugu badan ay ku dhinteen. warkii saaxiibayaal waa naga inta dawshada wacan ee warkeena waa ku mahadsantiin nabadgeliyo.